Soomaalida maalintii la doortay Xasan Sheekh Maxamuud maraysay god bay ku dhacdo Soomaalida waana ugu talagashay inay god ku dhacaan anaguna godkii baan ku sii soconaa marka waxaan dhihi lahaa mooshin baan dhihi lahaa habqanka haray in macnaha waxa weeye Soomaalida la badbaadiyo boqolkii maalmoodna waa u buuxsantay lamana hayo waxaan oran karaa Soomaaliya waxa u soo hoyatay hameyn madow iyo waqti madow Xasan Sheekhna wuu ku fashilmay boqol maalmood oo kooxda Damul Jadiid ay hogaaminayaan talada dalkana ay la wareegeen shacabka Soomaaliyeed ayaa waxa ay bilaabeen inay qiimeeyaan sidoo kalena waxa magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ka curtay banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo kooxda Damul Jadiid iyadoo shacabku fariin culus u direen baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya uguna baaqay in mooshin degdeg ah ay markaas ka keenaan kooxda Damul Jadiid hogaamiyaha kooxda Damul Jadiid Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gabi ahaanba ku fashilmay ammaankii qarannimada Soomaaliya iyo sidoo kale nidaamkii dawladeedba waxaana shacabku ay sheegeen meel xukuumadii ay ku biireen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab oo ugu horeeyay Roobow taliyihii NISA ee sirdoonka qaranka laga dhigay Maha Salaad in meeshaasi aan loo tagin waxqabad ee loo tagay in la sii burburiyay intii yareed ee iftiinkii dawladnimo ee madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa ay soo dhisayeen 5 sano ee la soo dhaafay waxaan halkaan idinkula wadaagi doonaa kelmadihii la yaabka lahaa ee shacabka Soomaaliyeed ay kaga horyaameen hogaamiyaha kooxda Damul Jadiid ayna ku diideen si cadna u sheegeen in kooxdan haatan talada dalka la wareegtay ay yihiin kuwa ka tirsan dagaalamayaasha ururka al-shabaab sidoo kalena xiriir dhow la leh argagixisada waxaana shacabku ay sheegeen in la joogo xilligii baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed ay u hiilin lahaayeen rajada shacabka Soomaaliyeed ay godka dheer ay ku tuureen 15 May 2022 waxay isbarbardhig ku sameynayaan shacabku waxqabadkii madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud oo horey loo tijaabiyay iyagoo shacabku ay sheegeen in kooxda haatan xukunka joogta aysan u qalmin inay sii hogaamiyaan Soomaaliya sidoo kalena ay niyad iyo quus ku yihiin qarannimada Soomaaliyeed ee curdanka ah dhammaan taageerayaasha wadaniyiinta ee Soomaaliyeed muuqaalkan shargareeya dhammaantiin la gareeya saaxiibayaal YouTube-kana subscribe saarta gambalaalkana furta ku mahadsanidin intaana u gudbin faahfaahinta dhameystiran iyo sidoo kale xogaha dambe aan gadaal idinkaga sheegi doono ila daawada kelmadii la yaabka lahaa ee shacabka Soomaaliyeed ay ugu horyimaadeen hogaamiyaha kooxda Damul Jadiid Xasan Sheekh Maxamuud fikirka la weydiiyo boqolkii maalmood maxaa madaxweynaha u qabsoomay runta aniga waxaan leeyahay boqol maalmood inuu gaarimo uu qabinay 5 bari baanu qabay waxa qowad xumana way ka muuqataa marka aniga madaxweynaha waxaan leeyahay boqolkii maalmood hadda alaama wax u qabsoon haba yaraatay ma jiraan wada hadalkiisii waxa kamid ahaa iyo khudbadihiisii adduunka waxaan ka samaynayaa dadka wada heshiisa iyo dariska heshiisa iyo nabad lagu wada noolaado boqolkii maalmoodna waa u buuxsantay lamana hayo waxaan oran karaa Soomaaliya waxa u soo hoyatay hameyn madow iyo waqti madow Xasan Sheekhna wuu ku fashilmay arrimahaas waxaana dhibtaas Soomaali u keenay baarlamaankii doortay oo Soomaaliyeed baa dhibtaa u keenay isagana waxaad ila moodaa habaarkii inuu wato binu aadanka oo dhan inuu wato oo dhabarka ku sito baad ila moodaa wax qabadna ka sugina annaka sugimayo idinkuna ka sugina kuwa khayr qaba Allah inuu ku bedelo ka qabsay madaxweynaha intuu qabsaday waxa kama hayno wax diyaarad ahayn diyaarad sii raac ma hayno waka marka madaxweynaha waxa leenahay waxa hadalka balan qaaday ka dhabeeyo shacabka heshiisiyo wadooyinka hadiso wadada amar waxaan fiiday wadooyinkii bidixii magaalada wada ma hayno waxa noo qabto madaxweynuhu wada ka heshiisiyo dalkiisa ay yimaado intuu dawladda ku wareegayo dalkiisa waxa fiiro dib ha ugu soo laabto anigu waxaan leeyahay balaqaadkii oo yiri boqol maalmood baan wax ku qabanaya waxaan garan karaa inuu dawlad boqolana dhisay xamara dhinacana aysan u dhaafin iyadii waqti abaar ah oo baaba dadkii joogo gobolada Soomaaliya baaba lagu yahay abaar ka taagan yihiin boqolkii wasiir iyo boqolkii 270 baarlamaanka ay wax qaban oo xamar ay dhooban yihiin waxaanu isleenahay wixii macaawinaha magaca Soomaaliya ku yimid intuu daasay soo dhaafi wiiday xamar hadee nin xasan nin sadcaal u ciil qabaha bay noola muuqataa sadcaalku badiyay hadee rabbi baan wax ka sugaynaa baan leenahay anagu boqol maalmood waxba qabanaya iyo sanooyin buu wax qabanaya anigu midna qof ahaan malihi waxaan Allah islaaha waa loo hanweynaa xasan oo shantan dambe waxa la isla shantii hore sano hadii uu wax dhaafay waxa la islaaha gadaal waa aragnimo wax ku qabanaya wax weyn buu qabanaya baa la islaaha hadda aad iyo aad baa loo qashuucsan yahay iyadoo lagu sabaynayo abaarta taagan
iyo boqolkii maalmood oo wax la qabtay ayaan jirin soomaalida maalintii la doortay xasan sheekh maxamuud iyo maanta waa arkaysaan sida ay tahay waa arkaysaan dabbaa ka baxaya soomaaliya dabbaa ka baxaya afarta koono annaga madaxweynaha iyagii soomaaliyana wuxuu ugu yaalay waa arkayseen dawladda soomaaliya meeshay maraysay hankii ay maraysay god bay ku dhacdo soomaalida waana ugu talagashay inay god ku dhacdo annaguna godkii baan ku sii soconnaa marka waxaan dhihi lahaa mooshin baan dhihi lahaa habqanka haray in micnaha waxa weeye soomaalida la badbaadiyo madaxweyne farmaajo waa u darsannay aad baan ugu darsannay waa laga dareemayaa soomaalida waa laga dareemayaa madaxweynaha waxaan kula talin lahaa waxba kama uu qaban karo soomaaliya isumana keeni karo kamana adeegi karo waxna uguma yaal isagoo raalli ah inuu xilka isaga tago baan u sheegayaa xasan sheekh maxamuud waxba ma qaban maxamed cabdulaahi farmaajo nin dawladda iyo dalka wax ugu yaallo ahaa askarta iyo ciidamada dhisay hawadeenni soo celiyey awlaadeenna annaga xirxirnayd iyo nabadadkayagii bannaanka keenay dawladdu horta waa wakhti dhow baa sida horta la magacaabay ama la doortay wakhti yarna way joogaan xafiiska laakiin waxyaalaha lagu qiimeeyo inay dawladdu horey u socotay inay gadaal u socoto waxaa ka mida boqolka maalmoodoo marka ugu horraysa afka hore ah waxaad mooddaa marka waxbaan sugaynaa annagu haddaan Soomaali nahay waxaan dhowraynay in dawladday beddeshay meeshii ay uga hadhay meel ka sii siyaada ah inay geystaan sugayn laakiin waxaad mooddaa hadda dibadhac badan baa jira haddaba saaxiibayaalad fara badan ayaa isweydiinaya maxay tahay waxqabadkii boqolka maalmood ee xasan sheekh maxamuud uu ku soo galay ololihiisii doorashada sidoo kalena markaasi uu waxba ka qaban waayey waxaa ka mid ah inuu ammaanka sugayo sidoo kalena markaasi wax weyn ka qaban doona qarannimada balse xasan sheekh maxamuud ayaa ka bixi waayey safarro joogto ah isaga oo markaasi u duulayay wadamada markaasi caalamka waxaana uu noqday madaxweynihii ugu horreeyay oo isagoo 3 bilood aana joogin u safra ilaa iyo 6 wadan sidoo kalena markaasi qorshaha ay ugu jiraan wadamo fara badan oo caalamka ah kooxda damul jadiid haatan talada dalka la wareegtay waxay ku mashquulayaan sida ay qabaan falanqeeyaasha siyaasaddu sidii ay hanti u tacban lahaayeen sidoo kalena xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu galay heshiis dhib weyn u keenay qarannimada Soomaaliya dhaawacayna badii Soomaaliyeed ee muddada fara badan madaxweyne farmaajo uu ku howlanaa soo celinteeda waxaana xasan sheekh maxamuud uu $5 milyan oo dollar uu siistay heshiiskii qaadka iyo qaybo kamid ah badeena Soomaaliya oo horey ay u siixdeen dawladdiisu ama sidoo kale dawladdii markaas isaga ka horeysay ee Shariif Sheekh Axmed sidoo kalena markaasi xasan sheekh maxamuud iyo kooxiisana markaasi ay xilligan ku howlan yihiin in mashaariic waaweyn iyo sidoo kale markaasi waxyaalaha hantida maguurtada ee qarankeena Soomaaliyeed ay u iibgeeyaan wadamada caalamka waxyaalaha la yaab kale ee kooxda damul jadiid haatan qorsheynayaan waxaa ka mid ah in shidaalka Soomaaliya sidoo kalena ay iibsadaan una iibgeeyaan caalamka iyagoo shilimaad yar oo aan nacfi lahayn siisanaya hantidii maguurtada ahayd shacabka Soomaaliyeedna markaas ka gadaya dawladaha shisheeye iyo dalal shisheeye oo dib weyn ku haya qarannimada Soomaaliya hogaamiyaha kooxda damul jadiid xasan sheekh maxamuud waxay shacabka Soomaaliyeed wada og yihiin inuu xiriir dhow leeyahay wadamada markaas ay ka mid tahay Masar Imaaraadka iyo sidoo kale Kenya kuwaas oo qarannimada Soomaaliyeed liddi weyn ku ah facsharna ku ah haddaba saaxiibayaal mataqaan xaaladaha iyo sidoo kale xogii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in xasan sheekh maxamuud xilligan uusan gacantaba ku hayn madaxdii maamul goboleedyada dalka iyadoo badi madaxda maamul goboleedyada ay ka hor yimaadeen sidoo kalena ay si cad u sheegeen inay la shaqayn karin hogaamiyaha maafiyada ah ee kooxda damul jadiid xasan sheekh